maraykankuna uu dhinac kasta ka tubay gobolkaasi ciidamadiisu haddii ay noqon lahaayeen kuwa badda, haddii ay noqon lahaayeen kuwa infentriga u diyaarsan ee lugta isticmaali kara, iyo haddii ay noqon lahaayeen kuwa cirkaba. haddana dhinaca kale waxaa soo baxaya in weli Iiraan lagu dhacinayahay. sababtu waa ilaalada kacaanka oo la leeyahay waa birlab aan loo dhawaan karin. waa doodaha qaar oo warbaahinta waaweyn ay qorayaan oo ay ka mid tahay majalada Axios. Trump ayaa u yeeray mas'uuliyiin sare oo ka tirsan amniga waddanka boqortooyada Saudi Arabia iyo kuwa Israa'iili ah, waxaana lagala hadlay bal in xoga la isweydaarsado sida arrintan loo gabagabayn lahaa, isla markaana loo eegi lahaa sida labada dhinac ay bal aragti ugu yeelan lahaayeen suurtagalnimada weerar lagu qaado dowladda Iiraan. majalladan waxay leedahay Maraykanka ayaa toddobaadkan martigeliyay mas'uuliyiin sare oo dhanka difaaca iyo sirdoonka oo ka kala socday Israa'iil iyo boqortooyada Sacuudiga, kuwaasi oo wada tashiyo arrimaha la xiriira laga yeelanayo Iiraan, xilli madaxweyne Trump uu ka fiirsanayo suurtagalnimada weerar military oo lagu qaado Dahraan sida ka muuqanaysa warbixintan. kulamadan ayaa imaanaya iyadoo Trump uu amar ku bixiyay in la xoojiyo joogitaanka ciidamada Maraykanka ee Khaliijka si loogu diyaar garoobo buu yiri suurtagalnimada tallaabo military. dhinaca kale Israa'iil iyo Sacuudiga iyo dalal kale oo gobolka ayaa maalmo badan ku jiray heegan sare iyagoo ka cabsi qaba in Maraykanka uu qaado weerar aad u ballaaran oo wax badan baabi'in kara, isla markaana ay suuragal tahay dhinaca la yiraahdo Iiraan in ay si ballaaran uga jawaabaan. majalada oo hadalkeeda sii wadata waxay leedahay wafdiga Israa'iil ee Washington ayaa yimid ujeedadiisuna ay tahay in uu la wadaago Maraykanka xogo sirdoon oo ku saabsan bartilmaameedyo suuragal ah oo ku yaala Iiraan. nimankan la yiraahdo Israa'iil iyagu xog bay wadaan, waxay leeyihiin annaga bartilmaameedyadaasi ayaan wadnaa ee hal la beegsado. laakiin waxaa la leeyahay dhinaca Sacuudiga marka la fiiriyo iyagu waxa ay doonayaan in waan wax lagu dhameeyo oo miiska wada xaajoodka iyo talada loo celiyo wada hadal albaaba diblomaasiyadeedna la furo. mas'uuliyiin ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in Trump uusan weli gaarin baa la yidhi go'aan kama dambaysa oo ku saabsan weerar military, inkastoo Arbacadii uu mar kale ku hanjabay in Iiraan uu ku qaadi doono weerar ka ballaaran kii lagu qaaday bishii Juun aynu ka soo gudubnay ee sanadkii tagay oo 12 maalin soconaya, kuwaasi oo u dhaxeeya Maraykanka iyo sidoo kale Israa'iil oo dhinaca iyo dowladda Iiraan oo garab kala taagan. hase ahaatee wixii dhacay waxay ahayd xayfo cardaadiqada laga dhigay. dhanka kale dhaqdhaqaaqyo qarsoon ayaa socda. taliyaha sirdoonka militariga Israa'iil General Shlomi Bender ayaa salaasadii iyo Arbacadii kulamo kala duwan la yeeshay mas'uuliyiin ka socda waaxda dagaalka ee Pentagon-ka ee waddanka Maraykanka, hay-adda sirdoonka dhexe ee CIA-da iyo saraakiil aqalka cad ka tirsan. waxaana uu sheegay in mas'uuliyiin Maraykan iyo la xog ogaala ay tilmaameen in Bender uu Washington u yimid in uu gudbiyo xogo sirdoon oo gaar ah oo Maraykanku uu ka dalbaday oo ku saabsan arrimaha Iiraan. marka waxyaabaha ugu weyn ee xogtan ka muuqanaya waxay tahay in Israa'iil ay tahay cidda banooniga dhexda ciyaaraysa oo xogaha keenaysa, Maraykankuna waxa uu qaadi doonaa tallaabada sida ka muuqanaysa. isla wargeyska haddii aan sii socdo, wasiirka amuraha difaaca ee Sacuudiga Amir Khalid bin Salman ayaa la filayaa in uu la kulmo ama kulmadiisa diiradda ku saaro faylka Iiraan oo isla markaana uu kala hadlo Pentagon-ka, wasaaradda amuraha dibadda iyo aqalka cad, isagoo la kulmi doona xogayaha amuraha dibadda Maraykanka Marco Rubio iyo ergeyga gaarka ee Maraykanka uu qaabilsan gobolka bariga dhexe Steve Witkoff.